halkani waa mid ka mid ah goobaha ay xarunta dhirbeerista ee sugan bilicsan ay ku diyaariso geedaha ay iibiyaan. waa ubaxyadii waxa noocyo kala duwan oo siidhka dhirta dalka laga helo iyo kuwa dibadda laga keenayba ay halkan ku beeraan ku koriyaan ilaa iyo inta uu ka iibgalayo. dhirta hadda halkan aanu ka helay laga helayo waxa kamid dhirkeena hore localka ahayd tan waxyada idii wada muuqata iyo dhir kale oo laga keeno dhirtan mahoganyga la yiraahdo aad ku weynaada oo aan marka hore dalka oolin. intii aanu ku sugnayn xarunta sugan ee dhirbeerista ee magaalada Hargeysa waxaa imanayay macaamiil tiro badan oo kala duwan oo iibsanaya dhirta noocyadeeda kala duwan oo isugu jira kuwa la harsado iyo ubaxyada guryaha lagu qurxiyaba. mid ka mid ah macaamiilka ayaan kala sheekaystay baladeegyada subaxan saaka ah oo halkan uu ka qaadanayay. halkan maaha markii ugu horeysay imid laba jeer oo horena imid labada jeerna waxa ka qaatay laba geed oo hadha gurigeygii ayaan ku horbeeray labadii geed imakana wala harsadaa. maamulka xaruntu waxay ii sheegeen in imaka dadku ay si fiican u barteen faa'iidada dhirbeerista macmiilkooduna uu sii kordho marba marka ka dambaysa. bilowgii dadku qaar waa nala yaabanaayeen oo yacni dhir la iibinayo inta badan halkan kama jirin marka waxay mar kasta lahaayeen maxaa idinka faa'iidaa dhiraad beerisaan maad business kale abuurataan. laakiin maanta Somaliland marka laga baxo ilaa garow laga soo doontaa meelaha ugu shisheeya waliba laga soo doontaa aan ku xidhannahay. mid ka mid ah mas'uuliyiinta dawladda oo aanu goobtan kula kulannay ayaa dadweynaha kula dardaarmay inay ka qayb qaataan dhirbeerista. aniga gurigeyga imika dhir aad u badan ma ku taala oo geed midhood leh oo flower leh oo kuwii har kale waxba halkan ka iibsaday. dhirtu waa muhiim waa quruxda dhulka. dadweynahana waxaan ka codsanayaa inay iibsadaan dhirtan oo ay beeraan. Hargeysa waa magaalo ay dhirtu ay ku yar tahay dadkuna ma siin jirin ahmiyad weyn dhirbeerista laakiin goobaha caynkan oo kale ah waxa ay ka qayb qaadan karaan dib u soo nooleynta bilicda deegaanka. Sidiiq Maxamed Burmad BBC Hargeysa.